سما طوبى للعبد إذا تنما رمضان تجلى وابتسما طوبى بشتاني وبل أن ربنا لبا وح إن نهله كو إن إلهي دنبقا قد عفو هذا ما هي إنه يد الدنب كررسانه dadka qaar baa bisha tan musalsalaad iyo balaa bishii uu dambiga hore iska rogi lahaa mid cusub bilaaba ma aha bil uu qofka bini aadamka ay kaslaan noqdo bilaad marna hurudow marna ma aha waa bil qofka muslimka ay ijtihaad ku jiro waa qofka muslimka ay waa bil uu dadaalkiisa xadkii kama dambaystaha isku dayay inuu gaarsiiyo muxuu rabaa in ilaahay dambiga ka maydho wuxuu rabaa ajar inta ugu badan la inuu shaqaysto wuxuu rabaa inuu ku biiro min utaqaa'ih kuwa ilaahay naarta ka xoreynaya habeen walba naarta badh baa laga xoreeyaa bisha tan oo dhan wadaaka fi kulli layla buu nabigu yidhi habeen walba ummadda muslimka qayb ka mid ah naarta laga xoreeya inaad u dadaasho sidii aad ugu biiri lahayd kuwa naarta laga xoreeyay waxay yidhahdaan culamadu bisha tani waa shahrun litaghyiir gebigeedba waa systemkaaga nololeed oo dhan inaad dib u hufto balaan cusub inaad degto acmaal gaaraa jirta uu bishan inoo sii tilmaamay waa kuwa ugu culus ee traininka lagu qaato traininada ugu culus kow de isagu waa ramadaan waa wada garanay iyada in la soomayo waa garanay waxyaabaha ugu culus ee bishan la qabto waxaa ka mid ah نبي محمد عليه الصلاة والسلام وبشو ملك الجبريل القرآن كلا دراسين جري ملك الجبريل باوي ماذا نبي محمد يا ملك الجبريل باوحي دراسيان كتابك الله إلى هذا الكيس إذا بشة نبي علماء ضوي هذا وبلو قفك مسلم كي أحد حده إنه كنت دبره إلهي كتاب كيسو فهمه إلهي محو نلشة كربه إذا بشة تاني وابلو قفك مسلم كي أحد حده وربل إلهي وركي سفهم مرتا ربي وحا وكوش يغيو رب السماوات والأرض يا أديك قولها الله بذاتك تذكر القرآن كمرك آخرين يعني عدك لك فكرة عدك لك فكرة أديكم با إلهي لها الله قف البقار كي سألوا لها الله وحيابها بشة وآت كوقع بجري النبي عليه الصلاة والسلام ومد المسلمين توفروا وحكم ده قيام الليل كتراويح ده صلاة ده بدن اللي تكون صلاة ده بتصطم يا بالله سفروا وحكم ده بيش تنات كل لو جود ده ليه أو نبي سمين شري التصدق صدقات إنه وين إنه نجوح النبي إنه بدنا إنه تذكر وحنسينه سيدا أوجد أي سحابي يمحولها nabigu wuxuu ahaa mid deeq badan ee asliyan baa nabiga caadadiisa waxay weligii wax la weydiiyay maya ma oran aduu bal qiyaas qof wax la weydiiyay aan maya oranin haddana isagoo sidaas noloshiisu ahay ayaa la yidhi haddana ramadaan wa kaana ajwad mima yakuun wuxuu ahaan jiray fi ramadaan bisha ramadaan wuu ka deeq badnaa bilaha kaloo dhan baa la yidhahdaa intuu bishaa bixiyo way ka gadisnay وحبيحنتي سكر ريح المرسلة بهيد بحديث المامية سيدي دبايل دبانيسا دبايل ببانيسا ما دبانيسا أيوة لمدها يعني النبي عليه الصلاة والسلام قاعدتي سوي فري بشتاني وبالمركات ضدك مسلمين تي التكافل الاجتماعي سنة حريستان فقراء وحلسية مساكين وحلسية قرابة الله حريرية طلق الله حريرية ادوال بو حلسية يا ابو النبي بيشن سمين شري وحكم ده iyadoo cibaadadiisu ay saa u badanto haddana bisha qayb ka mid ah dunidaba ka sii go'i jiray marka horeba bisha cibaada lagu jiray haddana qayb kaloo bishan ka mid ah buu ictikaaf wax la yidhaahdo samayn jiray the last days baad ku jirtaa tobanka maalmood ugu dambeeyana nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ictikaafi jiray marka ictikaafku macnaheedu waa maxay xaaraan iyo baabka ka kaalaya mubaaxaadka iyo xalaashii buu ka tegayay حتى حلال أجر لوجو قريو كتجيو أجر كوين وراديني النبي عليه الصلاة والسلام حين وتلا نينكو قبل لي سمركو وطقو دو حلال وطقو أجر بالله قرا سيد حديث كان نبي شيء لكن طبعا كان مع الموضة الدنبه مع الدمر ولا قفقانية ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد بإلهين هوين كان أهل نغمنا
idinkoo ictikaafsan baa la yidhi idan 10kan maalmood calaa'iqu dunya kullaha buu jaraya wuxuu u fasax qaadanayaa inuu umuurta aakhiro oo qura bisha ka shaqeeyo inuu 10kan maalmood umuurta aakhiro oo qura uu ka shaqeeyo waxyaabaha bishan ku badnaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah ducaa ilaahay baryadiisa walidalik baa aayadda ducada ugu khaasaysani waxay ku soo aroortay maxay fii wasati aayaati sawm waidaa sa'alaka cibaadii cannii fainii qariibun ujiibu dacwata daaci idaa dacaan falyu'minuu bii aayaadkaasi kadib baa walaa tubaashiruhunna waanta aayaadka dambe ictikaafkii ka warramaya soonka aayaadkii soonka kalena waa ka horreeyaan idan waxay dhexda ugu jirtaa maxay waxay dhexda ugu jirtaa ramadaanka walidaalika culamadu waxay idhahdaan waa astaan tilmaamaysa khusuusiyada ay dacwadu baryada ilaahay leedahay bishan gudaheeda daba ayuha alaxiba ilaahay wuxuuna leeyahy waan tasuumuu khayrun lakum in kuntum taclamuun kuwii cudurdaarka la siiyey ayaa haddana waxaa la yidhi wacala aladiina yutiiquunahu fidyatu طacaamu miskiin markii la yidhi ayaa haddana waxa la yidhi waan tasuumuu khayrun lakum in kuntum taclamuun adigoo cudurdaar haysta haddana waxaa la yidhi waan tasuumuu soonkaa idiin khayr badan haddaa wax garanaysaan baa ilaahayna leeyahy subxaanahu wa tacaala haddaa wax garanaysaan haddaba ayuha alaxiba warkaygu wuxuu ku kooban yahay bisha tan soo socota in shaa allahu tacaala diyaargarowgeennu ha noqdo sidaynu ilaahay ugu noqon lahayn rabbi ugu xidhmi lahayn aakhiro ay u noqon lahayn taargetkeenna ugu weyn iyo saynu cadaabkeeda uga badbaadi lahayn janno ilaahay u weydiisan lahayn oo u geli lahayn bisha tani markaa ha noqoto daal badani waa inuu kaa muuqdaa oo ah faidaa faragta fansab ilaahay taacadiisa iyo cibaadadiisa inaynu ku daallo ee bilka islaamnimo badan ay naga muuqato laziness bil aynu qaadna maaha bil dadku caajiso waan soomanay qof walba idhaa nafta ka sii baxdo ee waa bil aad u baahantahay waa tababar baad gelaysaaye 11 biloodoo dambaad u sii sahay qaadanaysaa 11 horena dembigoodaad iska maydhaysaa waa bil aad u sii saha qaadanayso cafaariiddii waaweyneed ee abaalisadii baa lagugu soo dayn doonaa markay dhammaataye saad isaga celin lahayd haddaad traininka ugu sii jirtaa ibliisaanu dibkuugu duufsan lahayn iyo kooxdiisii idan haddaad bisha lafteedii dayacanto dee waad wada dayacmaysaa saa awgeed buu nebigu wuxuu leeyahay man xurima khayruha faqad xurim ama uu aamin u leeyahay jibriil oo leh ninkay ramadaan u soo gasho fansalakh oo ay dhammaato walam yugfar lahu uu leeyahay afka ciidda ha daro nebi maxamedna waa aamiin leeyahay ilaahay waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala inta gaadha bishatan ee asiibtee ka faa'iidaysata ee ilaahay ugu dhowaata in rabbi inaga yeelo sala allahu calaa muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasallam